xukuumadda Soomaaliland ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku eedeysay inuu ka been sheegay qadiyada dadka koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ee laga tarxiilayo Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo laga jawaabay hadalkii ra'iisul wasaare Roble 3 bishan ka yiri qadiyada raafka Laascaanood ayaa lagu sheegay inay Soomaaliland ku qasbanaatay inay faahfaahin ka bixiso. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa lagu yiri kadib hadalkii ayaan darrada ahaa ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhawaan kaga hadlay arrimo khuseeya mas'uuliyadda madax bannaanida Soomaaliland. Dowladda Soomaaliland waxay dareentay inuu ku qasbanaatay inay wax kala cadayso. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Roble ku eedeysay inuu ka been abuuray qadiyada dadka reer koonfureedka ee laga tarxiilayo Laascaanood. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu door biday inuu bixiyo war aan sugnayn iyo eedeymo aan sariir raad lahayn go'aankii sharciga iyo laga maarmaanka ahaa ee dowladda ku tarxiilaysay shakhsiyaad gaar ah oo si sharci darro ah ku sugnaa degmada Laascaanood ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliland hoy u ahayd qaxoontiga wadamada jaarka muddo 10 sano isla markaana ay ilaalisay xuquuqda dadkaasi masaafirka ah. Warbixinta ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay hoy nabdoon u ahayd qaxoontiga ka soo jeeda wadamada jaarka muddadii 30 sano ahayd la soo dhaafay sida ay farayso waajibaadka bini'aadamnimo ee ku xisan xeerka aadantinimada ee caalamiga dastuurka Soomaaliland iyo xeerka muwaadiniinta dowladda Soomaaliland waxay ilaalisay nolosha iyo ammaan dadka ku nool gudaha xuduudeeda. Warbixinta ayaa lagu sheegay masaafirinta dadka laga tarxiilayo Soomaaliland ay sababtay arrimaha ammaan codsi ka yimid bulshada iyo maamulka Laascaanood. Hay'adda sirdoonka gobolka iyo xogo si toos ah u sheegay in shakhsiyaadkani ay khatar gelinayaan ammaanka bulshada. Waxa kale oo lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ilaalisay xuquuqda dadka laga masaafiriyay gobolka Sool. Xukuumadda Soomaaliland way ku qasbanaatay inay talaabadan qaado iyadoo ilaalinaysa xuquuqda aadamnimo sida biyaha, cuntada, hoyga iyo in aan la gaarsiin waxyeelo iyaga iyo hantidooda. Warbixinta ayaa inta ku dartay inay Soomaaliland dhammaan jaararkeeda xiriir wanaagsan kala leedahay arrimaha tahriibka iyo ilaalinta xuduudaha. Waxayna dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay indhaha caalamka uga jeedinayso guuldarrooyinkeeda oo ay eedo cid kale dusha u saarayso. Shaafici Shaaciye, Bulsha TV, Hargeysa.